markii rasaastu dhacday yaa rasaasta furaya biliiska furaya ciidamada badarka furaya dabeetna markay dhacday wuu soo degay madaxweynuhu wuxuu yidhi waar maxay si wax u jiraan waxaa la ogolayay baa lagu wargeliyay gaadhigiisa oo keliya inuu galo marka kelmadda xalgala weli wuxuu haddii aan imika noqdo oon gurigay ku noqdo waxaan ka baqa cabsi qaba in balaayo kala dhacdo ama fidnay dhacdo dhib kalena may jirinee askartii joogtay madaarka kadinka laga galo baa kolayadii joojisay dabcan koley badan ma hintays baabuurtii madaxweynaha saarna gaariga ka horreeyay dabcan marka ay security-gu saarnaayeen askar badanna ma ahayn 3-4 askari ba ahaayeen oo runtii protocolka lagu talagalay markaa inay dariiqa iyo qolada madaarka u sheegtay in meeshii uu madaxweynihii hormaraya iyo biliiska madaarkii ku kooban tahay wasaaradda ka dambeysay misoo ka sareysa waa dhacdo falxun runtii bulshadana maanta aad u gelgishay dadkana waxaan leenahay ha istijiyaan xukuumadda se wax laga rabaa in ay keento war cad ummadda iyo bulshada iyo dadka u sheegto ayaa laga rabaa wax kale horta may dhicin shalay bay runtii madaxweynihii hore igu soo wargeliyey anigii xubno kale oo kooban in uu britol baxayo oo markaa safar imaaraadka ah uu gaadhayo oo runtii uu invitation ka helay markaa subaxii saaka ayaan isku nimi hoyga dabcan madaxweynaha hore uu hargeysa ka degan yahay marka dee waxaan ahayn xubno kooban oo aan doonno markaa inaanu dee sii gelbino oo sii sabootino marka wax tashan oo taaganayd runtii may jirin dad badan oo kale markii dambena guriga way yimaadeenoo amba xisbiga ha ahaato amba dee akhyaarta kale ee dalkaba ha ahaato oo runtii halkaas saakaan isku nimi dabcan dareen waa jiray markii dambe in malaha askarad badan la dhigay madaarka markaa waxaa la go-aansaday in yaro kooban madaxweynaha ay sii gulbiso dad badanna runtii markaa dee gurigaaba laga tegey la keli waktiga diyaaradda waxay ahayd inay 11 ka kacdo markaa dib bay u dhacday diyaaradda dib u dhacday waxay noqotay markaa 12 inay diyaaraddu timaado iyo dheeraad dabcan markaa waxaan go-aansan intii dee madaarka la joogi lahaa in maadaama diyaaradduna ay dib u dhacday in hadda guriga lasii joogo dhib kalena may jirinee askartii joogtay madaarka kadinka laga galo baa kolayadii joojisay dabcan koley badan ma hintays baabuurtii madaxweynaha saarna gaariga ka horreeyay dabcan marka ay security-gu saarnaayeen askar badanna ma ahayn 3-4 askari ba ahaayeen oo runtii protocolka lagu talagalay markaa inay dariiqa iyo qolada madaarka u sheegtay in meeshii uu madaxweynihii hormaraya iyo intaasay ahayd kabacdina gaarigii askartii ayaa runtii is afdhaafay dabcan rasaas baa lagu furay markii rasaastu dhacday yaa rasaasta furaya biliiska furaya ciidamada badarka furaya dabeetna markay dhacday wuu soo degay madaxweynuhu wuxuu yidhi waar maxay si wax u jiraan waxaa la ogolayay baa lagu wargeliyay gaadhigiisa oo keliya inuu galo marka kelmadda xalgala weli wuxuu haddii aan imika noqdo oon gurigay ku noqdo waxaan ka baqa cabsi qaba in balaayo kala dhacdo ama fidnay dhacdo marka intii balaayo dhici lahayd oon isku lugeynaya horsid markaa madaarka kuu lageeyey dabcan markii dambe siibu ku baxay markaa dabcan runtii waa dhacdo falxun oon halkan uga faadaysiin oon ka cambaareen ciddii waxaa geysatay inay tallaabo qadan ahayd madaxweyne aad buu liba taxadar badan buu sameeyey askartaa wuxuu ku yidhi tallaabaha qaadeen qaar buu dhirbax la dhacay yidhi tallaabaha qaadeen amarka u hoggaansama askarta iyo biliiska marka waxaa muhiima in ogaano amarkiiya bixiyey iyo ku kooban tahay ma biliiska madaarkay ku kooban tahay ma wasaaraddii ay ku kooban tahay misoo ka sareysa dhacdan waa dhacdo fal aad u falxun madaxweyne hore qaranka maamuus buu ku leeyahay waana dastuuri qodob dastuuriya qeexi
keligiina maaha madaxweynayaashii iyo ku-xigeenadii soo maray dalka oo dhan maamulayay hogaaminayay dabcan maamuus baynu ugu leeyihin marka in dee maamuuskii uu lahaa la maryaabeen in absolutely xabad runtii loogu jawaabo maahan dacdo aada u falxun weeyaan waxaa ognahay madaxweynuhu tallaabooyinkii uu xil ku wareejiyey dhammaantoodba tallaabo dariiqa wanaagsan loo mari bahayd xagga wanaagsan isoo mar walba ka eegay waxaa ka daran sanadka hadda uu joogay xukunka wahay ee muxuu ahaye uu ka maqnaa dhacdooyin baa ka dhacay hargeysa iyo nawaaxigeeda waxaa ka mid ah dadkii lagu dilay suuqa hargeysa muxuu ahaye suuqa hargeysa lagu dilay dhalinyartii ilaa hadda la gelin layahay ciddiish waata in muddo a laisku haystay iyo aasaya see loo aasaya wuxuu rool shariifa ka qaatay inuu dad miidkii u aasto way arkayseen kaalinta odaytinimo iyo waayilnimo iyo dad jacayl iyo dad isku jiid iyo weliba in dowladda uu garab mar walba siiyo uu wanaag kula garab galo uu kula shaqeeyo ayaa runtii dee ay dacdooyinka uu ka qayb qaateen ina tusiisay agabar baa ka mid ahayd dhacdii agabar argaysa waa kii dadku u dejinayay la hadlayay marka de maadaama uu dalkan in badan soo maamulayay wax badan xoogaal u yahay dadkii deegaanka iyo dalkaba uu xoogaal badan u yahay nin dadku in isku dhacaan diyaar ah maanta uma aha bal ay wuxuu jecel yihiin dadku iyo qulubtii dadku ay isjiitaan isku soo dhaweeyo marka maadaama ayn ognahay dee inuu qarankanaaba uu ku leeyahay maamuus haddana uu rool shariifa ah oo odaytinimo uu dadka iyo dalkaba uu ku dhex joogo wixii dheeraada intaa loola tagaa waxaan aaminsanahay inay gardaro tahay cabdinaasir qodax dadka qaarkood waxay leeyihiin madaxweynuhu waxa uu watay ciidan badan iyo kooxo kala duwan maadaamaaynu ognahay madaarka ammaankiisa sida loo ilaaliya aynu ka warhayno ciidamada badan ee uu madaxweynuhu watay ayaa sababay bay leeyihiin dadka qaarkood in taasi ay dhacdo oo rasaasintu halkaa ay ka dhacdo horta ciidamad badan may socon anig kuu sheegayba 3-4 askari oo gaadhiga hore ee brotokoolka ka horreeyey ayaa la socday ciidamo badan iyo waxaan waa la buunbuuninaya ciidamo badan dee anaaba goobjoogahay may joogin guriga cid soo raacdayna ma jirin marka meesha ciidamo badan may joogin ee waxaad moodaa dhacdo dad goonii ka shaqaynayeen in ahayd dadkaasina xukuumadda laga rabaa dee maanta iyaga xilkii haya waana dhacdo foolxun iyadaa laga rabaa jawaabtii ay ka bixin lahayd xildhibaan qodax maadaamaad ka mid tahay golaha wakiilada somalilan sharcigu intuu u ogol yahay in madaxweynahaasi ciidamada isaga ilaalinaya iyo inta la socon karta madaxweynaha kasta keligii maaha madaxweyne kasta oo somalilan soo mara iyo ku-xigeenadoodu dhammaantoodba brotokool gooniya iyo maamuus gooniya qaran ku leeyihi mar walba amnigooda ha ahaato gaadiidka raaciyan ha ahaato hooygooda ha ahaato intaba qaranka damaanaad qaada intii qaranku sii wax ka dheeraadana madaxweynihii hore ma haysto idinku haddii aad tihiin xisbiga kulmiye yaa u aanaynaysaan in falkani ay qeyb ka ahayd dabcan waa tii hadalkayga horena ku jirtay xukuumaddaa dalka maamusha xukuumaddaa laga rabaa dhacdadan foosha xun leh ciddii amarka bixisay in ay caddayso biliiska madaarkay ku kooban tahay ma wasaaraddaa ka dambeysay misoo ka saraysa waa dhacdo foolxun runtii bulshadana maanta aada u gelgeshay dadkana waxaan leenahay ha istejiyaan xukuumadda se waxa laga rabaa in ay keento war cad ummadda iyo bulshada iyo dadka u sheegto ayaa laga rabaa